السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال إذا لهانتين meel walbo aad joogtaan waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada wareysiga gabadha Jiniga ah ee Reema oo idinkaga mahadcelinayaa sidaad ula socotaan wareysiga qaybtiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraadba hadda shanaad ayaan idin soo gudbinaynaa waxaan uga mahadcelinayaa wareysiga walaalkay Abuukar Sheekh Axmed Al-Badri anigoo sharmaakana waan idin soo tabin doonaa ila socda Reemaan way la joogtaa maanta marti kalena way nala joogaan hana la socdo Reemaan marka hore soo dhawo marka xigta toddobaadka hore su'aashii aan ku weydiiyay waan ka jawaabaa idigu turun baan ka bilaabina maanta dhambaalkii saaxiibta Nujuum ay u dirtay wiilkii Axmed inta uusan geeriyoon ka hor saameyn noocay ah noloshiisa ku yeelatay xaqiiqdii dhambaalkaas anaga qashuuc badan buu na geliyay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo muxuu sameeyay muxuu ku jawaabay maadaama ay caddahay inuu dhambaalka uga yimid gabaraan insa ahayn أحمد إلهي أقول حريصة هذا ودنتي دعاء إنه ربنا هي صاحب النجوم إلهي عافية نحن جريدي سكن حضرت دعاء ولكم وجشتا ربتي أحمد هذا يوقف عليه لمبالك ودرت صاحبتي نحن أيوة قاضي فرحتكم وصنصور وين لمبالك مركي لمبالك آخريه وإسوالي درك أيوة تور جاري بس قرآن أيوة جرو كو آخريه والله السحرية أيوة يري وهو أقاطع إلا سحرية وجيني لو أديك سدين بس لما سحرين جينينا لو ما أديك سن إساق ونبا إسكدا جيني لو عبدور سيدق وبهالشيء وأرين يابله حقيقي ريما لكن يدو وجيني isaguna waa insi marka ay ka helaysay halkuu joogay sidaysa u aragtay أحمد wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada shiishada cabta inta ugu badan goobaha shiishada lagu dhuuqo jinnigu wuu joogaa waliba jinniga ugu halista badan ayaa jooga waayo jinniga tubaakada ayuu aad u jecel yahay kiisa xun iyo kiisa fiicanna inta badan way cabaan shiishada أحمد شيشة وعبو مرق وقع سيدايو أي كركيسة سكدو كجرت صاحبتي كدب نهانيت كيس أي سوريسة أي كهشة درتيس أي ماشي شيشة وبتجي جرتي أحمد شيشة دي أيو كل حنو صدي وايو شيشة وعطوا قاعد وعلس وصندوق قاعد وعلى وهو قاضي عذر كتيبي لكدب نوالي دوي شيشة دي اللي إسكنافي صاحبتي نسيدة أي بوليسة وصور عظي أدي هذا أوقرت ريما أحمد فالعلنتيسي iyo quraankii sidee bay saameyn ugu yeesheen Nujuum sidee u saameeyeen nasiib darada dhacday waxay ahayd in saaxiibkay gurigii laga xijaabay oo quraan laga saaray muddo dheer ayuu guriga quraan ku waday oo saaxiibkay laga xijaabay qolkii uu deganaa ee ay warqada u dhex dhigtay xitaa wuu ka guuray jamco waliba guriga quraan baa lagu aqriyaa oo raatib ayuu ka dhigtay marka uu guriga ka baxayo qolkiisa quraan ayuu ku shidaa oo kaga tagaa gaadhigiisa heesiyo uu ka joojiyay oo quraan ayuu ka shitaa meelihii uu shishada ku cab jirna wuu ka go'ay marka qaar heer wuxuu gaaray haddii uu si caadi ah u jirracoodo inuu moodo in ay Nujuum afuufayso markaas ayuu qayliyaa a'uudu billaah ayuu yiraahdaa dadkii dhan ayaa la yaabay wiilku wuxuu dhaqmay wax waashay oo kale quraan akhris ayaa lagu waday muddo dhowr bilood ah saaxiibtay dhambaalkii naxariista badnaa ee u dirtay Axmed waxay ka dhaxashay inay aragiisa weyso in muddo ah wiilkii ay jeclayd iyo iyadiina shanfaroodle ayaa kala irdeeyay waayo haddii xitaa uu u naxariisan lahaa iyagii baa quraan iyo dhaawid la daba kacay oo wiilku kule uu waashay isagina wuxuu aaminay inuu sixray ugu dambeydii xaaladiisa waa ay soo ronaatay Axmed xitaa waxaa jirtay rajo ah inuu Nujuum jeclaan doono saansaan wanaagsan ayaana ka muuqatay inta uusan qaraxa ku dhiman waan ku gartay Reema inta quraan saarka uu ku socday Axmed iyo Daawida maxay sameyn jirtay saaxiibta Nujuum miyay ugu tagi jirtay gurigiisa siduusa quraanka u saameeyay ayada ما أيسن تيجي كريم وايا قرآن كلا أقريه وهو حجاب إذا لقى أقرص قرآن كنا هو حجاب وحين لقى أقرص كحجاب حتى إنسيجا أيو إنسيجا كله يدون منه كحجاب هذه وسنية ذا وضع هذا وأقرصه الله نبر يده وأقبله مركز صاحبتي من وجمع بنانين جرجا قرآن كله وضع إيجاشوا وان قرتي ريما صاحبتها markii quraanka uu akhristay Axmed ma weysay mise wali way arki kartay
aragti way arki kartay balse sidii ay markii hore ugu dhaweyd ee habeenkii dhan iskala joogi jirtay uguma aysan soo dhawaan karin riyadiisii sidii ay ugula haasaawi jirtay waa ay weysay mararka uu guriga ka soo baxo ee uu gaarigiisa meel inta dhigo kadib ayay sheeda ka daawan jirtay fursadaas ayay joogto u raadin jirtay waayo waxay ahayd fursadda keliya ee ay haysatay waa xilliga keliya ee uusan qur-aanka u dhaarnayn ama uusan akhrinin ee uu xijaab la-aan yahay mararka uu qur-aanka afka ku haysto ma arki karin wuu ka xijaabnayay waan gartay reema sida aad ii sheegtay galabtii aan gurigaaga joognay axmed muddo kadib wuxuu yareeyey qur-aankii uu isaga xijaabi jiray najuum kadib najuum waxa ay dib u bilowday in ay la xiriirto oo dhambaale hor leh oo dirto axmed arrintaasi wax iiga sheeg fadlan najuum wax kale ayay heshay fursad ay axmed ugu dhawaato axmed gurigii hore ayuu ka guuray gabar ayuu la saaxiibay gabadhaas ayaana ugu imaan jirtay guriga uu deganaa najuum kama aysan xumaan in uu saaxiib yeeshay waayo waxay ahayd xilliga keliya ay fursad u heli jirtay inay daawato isagoo gabadha la sheekaysanaya balse gabadha waxay ahayd gabar suuro badan xanaaq badan maseer badan inta badanna iyada uun inta xaalad abuurto ayay waqtiga kaga qaadi jirtay aad ayuu ugu dulqaadan jiray oo u maslaxin jiray marka ay ka tagto ayuu fikir geli jiray xilligaas uu fikirayo ayay saaxiibtay najuumna ka faa'iidaysan jirtay oo inta u dhawaato ayay waxa ku fikirayo ayay u suureyn jirtay markaasuu fikirka la tago ee uu ka fikirayo gabadhii uu jeclaa ee u timid haddana ka tagtay isagoo aan faraxsanayn ayay najuum isagana gelin jirtay riyo maalmeed uu isaga u maleeyo khiyaali uu isaga abuurtay balse ay iyada u abuurayso sidoo kale ayay kusoo laabatay in ay riyadiisa habeenkii ugu timaado isagiina inuu riyadaas jeclaysto ayuu bilaabay oo qur-aankii marka uu seexanaya uu shidan jiray xitaa wuu iska damin jiray markii dambe waan gartay dhambaalkii markii dambe ay u dirtay maxay ku qortay maxaa ku qornaa waxay uga sheekaysay sida ay u jeceshahay iyo sida uu qaladka uga aaminsan yahay waxay u sheegtay in aysan noloshiisa ka harayn weligeed ama ha aqbalo ama ha diide iyo in ay diyaar u tahay inay is arkaan iyadoo aan wax dhib ah u geysanayn reemaha dhambaalkaas hadda ma wada akhrin karno aad buu u dheeryahay laakiin waxaa jirta qayb yar oo ay ugu sheegayso in ay is arkeen qaabkay ugu sheegtay inay is arkeen saaxiibtay maalin maalmaha ka mid ah waxa ay raacday bajaaj waxayna doonaysay inay isaga aragto markii ay bajaaj ka degtay meeshii uu gaarigiisa yaalay iyadoo gabar caadi ah u eg ayuu aad u soo jaleecay wuxuu u muujiyey xoogaa dhoolacadayn ah iyadana way u dhoolacadaysay iyadoo ka shiixaysa hoosna u eegaysa kadibna gaarigii markii uu fuulay ayuu ku yidhi makusii dhoweeyaa iyadana haa ayay ku tiri halkee buu u dhoweeyey markaas iyada waxay u sheegtay xaafadiisa xaggeeda ah kadibna inta ay gaariga la saarneyd ayuu magaceeda weydiiyey waxay u sheegtay magaceeda runta ah kadibna lambarkeeda ayuu weydiiyey kadibna waxay ku tiri magaalada waan ku cusubahay lambar weli ma qaadan sidii ayuu kiisa ugu qoray markii xaafadiisa lagu dhawaada ayay gaariga ka degtay isagoo aad u soo horaansanaya ayuu makacaqaaqay reema markaas axmed miyuu dareensanaa in ay tahay gabar jinni ah may muu dareemin quruxdeeda iyo labiskeeda iyo habdhiskeeda ayuu ka helay waayo najuum waxay leedahay qurux mucjiso ah isaga aad ayuu uga helay balse markii uu gaariga dhaqaajiyey iyadana way iska qarisay waayo markii horeba keligiis ayaa arki karay oo dadka kale maysan arki karin inkastoo ay isaga la ahayd in ay dadka arkayaan gabadhan horay u saaran waa arrin yaab leh sidee bay dhambaalkeeda ugu sheegtay arrintaas markii ay doonaysay inay axmed u sheegto waxay ku tiri sidan axmed neecawo maalintii iigu farxadda badneed waxay ahayd markii aniga oo ka degay bajaaj inta ku soo eegay aad iigu baaqday inaad horay iisii qaado oo aan horay kuu sii raacay fursadda iigu dhow ee aad igu aragtay ayay ahayd in badan ayaad i qoraansatay lambarkayga ayaad i weydiisay waxaan ku iri magaalada waan ku cusubahay oo lambar ma lihi nasiib darro isuma kaa sheegi karin oo waxaan ka baqay inaad mar kale qalqal gasho oo aan haddana ku waayo axmed hadalkaas wuu yaro garaystay oo fariintii labaad kama uusan qalqalin magacii najuum ee markii ay gaariga la raacday ay u sheegtay ayay dhambaalka ugu soo qortay oo wuu garaystay kadib muxuu sameeyey marka wuxuu arrintii kala sheekaystay saaxiibadii markii uu ka sheekaynayay waan la joognay runta ayuu ka sheegay oo weliba wuxuu lahaa haddii aysan igu darsoomayn waaban iskala saaxiibi lahaa marka reemaa geeraarka warqadda ku qornaa adigu wax ma ka xasuusataa
haa uu dheeraa warqadii ma haya hadda balse 3 beej ayaan ka xasuustaa isaga oo bilow iyo dhammaystir leh waan ku siin doonaa marka aan arrinka nujuum buugga ka qorayno balse hadda beydadka aan xusuusto waxaa ka mid ahaa markaan barashada jacaylka bidhaantaada jaleecay markaad beerkayga qaaday bartamaha wadnaha i jeexday miyuu ba'a ii bilowday sidii baalalayda buushta naftan korkaa bidhaansan u baahan caashaqaaga hadday dhab kuugu baaqdo baxnaano miyaad u quuri markaad bartankii habeenka bogaaga sariirta saarto naftan boholyowgu qaado ee awgaa bisin bisoota miyaad buuxow daryeeli markaad baxsanoo salaaxdo bisada yar ee beydka joogta jirkayga siduu u booyo buseelkee garnugeylka miyay weli kuu bidhaansay intaas ayaan ka xasuustaa sidii ay saaxiibtay u tirinaysay suguma toostoosna balse waa in hadda xusuustayda ku jirta aad iyo aad Rayma bal horta intaasi aan kaga beerno aan ku joojino xasuusta Axmed Allah u naxariisto iyo saaxiibtaan nujuum waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aad iiga waranto habka dhaqan dhaqaale ee jinniga Soomaaliyeed jinni ahaan noloshiina maxay ku tiirsan tahay insiga ayaa la mid nahay badankeen waxaan cunnaa waxa ay shanfaroodlaha cunaan balse jinniga qaar baa dhaqanka dugaagta leh jinku miyuu kaluumaystaa xoolo ma leeyahay oo ma dhaqdaa beero ma leeyahay maxaa idin ah dhaqaalaha aasaasiga ah jinniga xoolaha wuu dhaqdaa balse geela ma jecla jinniga xoolaha uu ugu jecel yahay ee uu dhaqdo waa digaaga ariga waan leenahay eeyaha iyo bisadaha waa xoolaheena kuweena gaalada ah way iska cunaan balse kuweena muslimka ah doofaarka ma cunaan Rayma waxaa la sheegaa in jinniga uu aad u jecel yahay hilibka digaaga taas miyay jirtaa haa tusaale haddii qof inta uu habeenkii hilib digaag cuno isaga oo aan gacmaha saabuun isaga dhaqan jiifto marka uu hurdo waxa uu imaanaya jinni gacmaha ka leefleefaya hilibka digaaga haddii aad cunto oo aad meel mugdi ah aad marto waxbaa ku soo eryaanaya waa jinni hilibkaas soo raacay marka hilibka digaaga waa cuntada uu jinniga ugu jecel yahay cuntada labaad ee aan ka helno waa kalluunka waa sababta aan badankeen xeebta u degan nahay Rayma maanta waxaa la jooga saaxiibkii Cabdiraxmaan xaqiiqdii marar badan buu ka weydiiyay inuu ku barto maanta marka ila soo hadlaysana waan kuu sheegay haddana Cabdiraxmaan inuu ku salaamo rabaa marka Cabdiraxmaan kaale Rayma Cabdiraxmaan waa qalqalaysa caadi waa Rayma waayahay jinniga ma leeyahay faqiir iyo taajir haa xaafadda la yidhaahdo suuq iyo galeen waa xaafadda isku raranta ah ee ay degan yihiin jinka saboolka ah qaarkood xitaa guri ma haystaan oo buushash ayay degan yihiin qaarkood wax ay cunaan ma haystaan oo duruftooda waa mid aad u sarreysa qaarna waaba tuugsadaan Rayma dadku waxay aaminsan yihiin in jinniga awood ay leeyihiin oo wax walba ay ogaan karaan in ay lacago iyo dahab insiga siin karaan arrintaasi ma jirtaa oo sax miya waxna way ka jiraan waxna waa been wax waa ka jiraan oo jinnigu wuxuu ogaan karaa wax aan insiga ogaan karin balse qofna xoolo ma siin karo hadda haddii aan doono in aan hantideeda qayb kaa siiyo sida keliya ee aad kaga faa'iidaysan karto waa in aad soo gasho nolosha jinniga haddii aad dunidaada insiga gasho xoolihii waxay kaaga harayaan nolosha jinniga balse xoolaha inta uu jinni insi siiyo uu insi haysan karo ma jiraan sida kaliya ay ku jiri karaan waa inuu qofkaas waalan yahay oo qashinada ku nool yahay noloshaasna uu isaga u arko nolol qurux badan halka ay dadka u arkaan mid qurun badan jinniga hilibka digaaga dadka ku raaca Rayma ma jirtaa meel uu u badan yahay si lisaga ilaalin karo haa meelaha qabuuraha ku yaalaan haddii agagaarahaaga qabuuro ku yaalaan adiga oo hilib digaag cunay oo aan saabuun ku dhaqin ha aadin haddii aad hilib digaag cunto iska jir in aad aado meel qabuuro u dhow ama aad habeen meel mugdi ah lugayso Rayma ka waran dadka inta xeebta liida tago jibsiga iyo digaaga inta soo qaataan take away ahaan u soo qaataan la soo baxaan wadada la soo marayaan maxaad kula talin lahayd
waxaan leeyahay heebta aad ha ugu dhawaanina haddii uu qofku biyaha inta uu dhawaado hilib digaag cunayo waxaa laga yaabaa inuu jinni dafo kadibna la dhaho qofkii badda ayaa qaaday ama libax badeed ayaa qofkii dafay qofkaas isaga ayaa halis isgeliyey xaqiiqdii Rema waa arrin naxdin leh sidee buu qofku ku garan karaa inuu jinni goobta ka dhow yahay xilligii habeenka ah jinniga astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah in iyada oo biyaha ay aad u degan yihiin aad dareento biyo tixtiixa oo meel ay ka soo kacayaan aadan u jeedin ama hawo tiro badan oo haddana dabeel ahaan aan u kacayn markaasba adkaarta qabso ama meesha isaga tag Rema markii aad muuqaalka jinniga lahayd ee aad ii soo muuqatay soo socotay waxaa ka yeerayay shanqaro aan fahmi waayey maxay yihiin waan qoslayay waayo mid jinniga ka mid ah ayaan isku dhici gaarnay wuuna iga baqay oo wuu iga cararay jinniga sidee buu u qoslaa waan dhahnaa xiish 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 waan dhahnaa zuuka 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 waan dhahnaa gabdhaha zuuka zuuka aniga ayaad iga qosol siisay Rema bal muuqaalkaagii dhanka jinniga ahaa saddexdii mar ee aad iska kay tustay wuxuu ahaa saddex nooc oo kala duwan oo haddana argagax badan aniga igiliyay runtii aad ayaan kaaga naxay hadda ma iga ogolaanaysaa in aad dadka u kala qeexdo ama muuqaalkaaga u sharaxdo zuuka zuuka